Assalaamu calaykum, galab wanaagsan, maalin wanaagsan, duhur wanaagsan, habeen wanaagsan. Maantana waxaan idiin soo gudbin doonaa akhbaarihii aan nooga barateen oo xiisaha lahaa, kuwa ugu fiican ama kuwa ugu macquulsan. Coin market cap meesha ugu weyn dunida ee coinanka ama cryptocurrency-ga ku sameysa tracking-ka iyada meesha hoggaamisa qiimaha ama price-ka inta ay marayaan had walbaba wax ayaa waxay soo bandhigtay macluumaad ah in wadamada aadka ugu soo badanaya isticmaalahan ay tahay 46% Nigeria ayaa isticmaali jirtay. Waxaa kale oo kusoo batay 46% Africa waa Nigeria iyo Ethiopia iyo Rwanda iyadoo macluumaad dhammaystiran ay tustaan. Laakiin Asia waxaa la yidhahdaa wadamankan isku jira Africa, America iyo Asia. Wadamanka ugu horeeya waa wadamanka Asian countries la isku yiraahdo. Asian countries la isku yiraahdo waa New Zealand iyo wadamankan Solomon iyo wadamanka adiga wadaman adiga isku tegayo aad u badano Australia, New Zealand way badan yihiin, Fiji ayaa la yidhahdaa. Kuwaas ayaa hogaaminaya. Kuwa ku xigana ama kuwa number 2-gana waa Africa marka waxaa hogaaminaysa markaan geliyay Google-ka waxaa ii soo baxday in ay hogaaminayso Rwanda iyo Nigeria, wadamanka Ethiopia tan hadday soo baxaysaa insha Allah. Waa Rwanda number 1 ah, Ethiopia iyo Nigeria iyo Myanmar, Burma loo yaqaana iyo Cambodia. Cambodia waa Latin America. Waxayna dhaheen dadka isticmaala gabdhaha 43% ayay ahayn marka hore, hadda laakiin waxay marayaan 164 almost way laba jibaarmeen gabdhaha isticmaala. Da'da isticmaashana waa 18 ilaa 24 jir ayaa aad u daneeya oo ku soo badanaya waxyaabahan cryptocurrency-ga ah. Iyada marka waa coin market cap-na waa kan ugu weyn oo yacni wax walba oo cryptocurrency ay ku jiraan ama qiimahooda ha noqdaan ama waxa magacooda ha noqdaan ama scam ha ahaadaan ama yuusan scam ahaanin, wax walba halkan ayay ku jiraan. Iyaga ayaana wadamo soo bandhigay warbixintaasi, waxaana aad iyo aad ugu isticmaalaa wadamankan 1, 2, 3, 4, 5 waa qaarad adiga, laakiin wadamay usii kala baxayaan waa Africa, America, Asia iyo intaas. Marka iyadoo qoraalna waxaan idin dhigi doonaa website-ka ayaan idin dhigi doonaa, halkaas kala socda. Iyadoo codahana qofkii raba inuu dhageystana waa taasa. Marka waxay leeyihiin waxaa aad u soo badanaya isticmaalka cryptocurrency-ga oo ah dhalinyarada ayaa aad u daneynaysa. Waxaan dadka waaweyn ma garanayo, laakiin inta adiga 18 ilaa 24, 25, 26, 20 ayaa aad ugu soo badanaya. Taasina waxay tahay in generation-ka hadda jira ay ku yaraanaysa aaminaadii dhaqaalaha adduunka ay aamini jireen oo ahayd financial-ka ahayd ayaa aad u soo badanaysa. Marka waa wax aad iyo aad loogu farxo. Kolley wixii kaloo macluumaad ah oo aragnana waa idiin soo gudbin doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.